hay-adaha samafalka iyo kuwa NGO-leyda ee localka kuwa NGO-lada dadka qaxiyay ee banaanka ku qaxiyay magaalada ha buufiyeen magaalada jida ha u sameeyeen biyo baxada ha ka qayb qaateen $1 laguma bixi karo banaanka hal shay banaanka laguma bixi karo annagoo biyaha hor taagan yaa qaxiyay dadka macol baa galay col miyaa galay dadka annaga u madaxee goormaan niri biyahan ha laga qaxo yaa iga haya yaa qaxiyay dadka waanu ognahay NGO-ley oo baabuurey iyo ciyaal yaryar oo magaciisa soo martay oo baqti xaraan ka shaqeynay oo annaga biyahan xirnaba faruuraysa NGO-ley waanu ognahay iyo gacmo kalaba gacmaha kalena waa la soconaa NGO-gi iyo hay-addii isku dayda banaankaas inay wax ku bixiso biyaha cidda laga xiri lahayaa suma wallaahi maxkamadan la istaagayaa cidda $1 meesha ku bixisa la soo gudbiyo biyahan xirina ha lagu bixiyo ceel macaan oo booriga ha loo qodo magaalada kanaaca ka kacday ha laga buufiyo wasaqda biyaha oo meelaha ku go'doonto biyaha xareedda ku go'doomiyeen booyada inta keenan ha ka dhuuqeen ha ka soo daadiyeen meeshii ay ka bixiyeenna ha ka wax bedela ha saareen ama laami ha saareen ama jay ha saareen magaalada ha nagala shaqeeyeen xanuun badan baa ka iman karaya magaalada hay-addii meeshaa wax ku bixisa ciidamo boliis oo badan baa noo jooga militariya noo jooga nabad sugida noo jooga sirdoon badan baa noo jooga hal garaan hay-addii meeshaa ku bixisa suma wallaahi xabsigaa tegisaano haddaad wax bixinaysaan developmentii soo aadano developmentii soo aada dhinaca horumarinta soo aada dib u dhiska soo aada maanta waxaan ku qabtay halkaa mid wada kartoono iyo caagado oo dhahaya UNHCR aan ahay UNHCR waa hay-addee noocee u taalla hay-addii soo ma ahayn hay-adda qaxootiga adduunka maaha goormaa annagu qaxooti noqonay goormaa reer beledweyne qaxooti noqdeen goormaan qaxooti noqonay reer beledweyne haddaana annaga dadka madaxa adduunkana waa ma ahayn qaxooti horumarin baan u baahanaa kabnana waa u baahnaa maxaa nalaga kabayaa biyo xidhiinkaa nalaga kabayaa waxaa nalaga kabayaa magaalada kaneecaa ka dhalatay in nalaga buufiyo waxaa nalaga kabayaa biyaha wasaqda ah ee yaalla xareeddu meelaha ay ku godoomisay in booyada inta loo keeno laga jiido bannaanka lagu soo daadiyo jay looga shubo waxaa nalaga kabayaa xanuunka adduunkoo dhan aafada ku noqday ee corona la yidhaahdo waxaa nalaga kabayaa isbitaalkeenna waa qaawanya dawo ina la siiyo waxaa nalaga kabayaa waxa aadamiga macno u samaynayo adeeggaha nalaga kabaya nalaga kabin mayo xoogaa bariis iyo kartoon la wada iyo sasanyeyna $2 iyo saabuunta dharka lagu dhaqdo 5 senti ayaa qof dumara iyo baaldi ayaa subaxii bannaan la soo istaajinaya 12 maantay bannaanka taagantay waxa dhan oo $5 ma dhabo $5 ma dhabo waxa dhamaan ilaa maantana bannaanka lagu weeyo war ma qaadanayno haddaan shalay indhaha ka qabsanayno maanta indhaha kama qabsan doono hay-adda wax bixinaysaa warqad baan u diray maalintan xafiiskeena nala soo wadaagaan waxa dadka u qabanaysaan u haysaan laba hay-adaa soo jawaabtay laba bas kuwa kale maxay la aamuseen xaaraan bay ka shaqaynayaan soo maaha waa inoo tahay micnaheedu maaha inaan iska hadlaya maaha wallaahi ma iska hadlayo haddaan arka hay-ad meeshaa saabuun ku bixinaysa iyo kalooriin meel lagu shubo iyo saabuun lagu fara dhaqdo hay-ad bannaankaa dadka ku siiraysa haddaan arka ilaahay baan ku dhaartee waxaysan weligeed ku fakerin ku fakeraysaa way naga guuraysaa of waa baxaysaa amarkeena hay-addaan ku shaqaynayno dadka in loo adeegaan u baahnano amarkeena lagu shaqayna waa u baahnaa dalka annaga ka madax ciddii diidda oo u hoggaansan weyda guriga habarteeda ay u kacaysaan waxaa la yidhaahdaa wax kasta waa isku day ee guul maaha qolooyinka xitaa siyaasadda anaaniska ku sameeya oo ka hadla waxay yidhahdaan siyaasaddu waa isku day ee guul maaha micnaheedu uu yahay qofku markuu madaxa ugu hoggaanka waddan noqdo madalan madaxweyne markuu waddan ka noqdo subaxaasaa welwel u soo hoyanaya welwel micnaheedu maaha marka ma nasan waayo haddii shaqa la qabanayana waa isku day ee guushu xagga allay jirtaa dawladda Soomaaliya waxaa la yidhi dibiga doolood dhagihiisu waxsan waa maqlaan laakiin indhihiisu waxsan ma arkaan doollo waa meel oon badan oo aan ceel ku oolin war dawladihii hore dibiga doolooday ka dhigeen gobolkan iyo degmadan maanta aan ku noolnahay iyo gobolkan Hiiraanba dibiga doolooday ka dhigeen
دولة الصومالية ما أنت جرته ددال بان نو موقده ددال أي نار صوفرتان نو موقد waxaan noo muuqda golo wasiiro imanaya oo maxaad ku sugantiin dhahaye waxaan noo muuqda injineero la soo dirayo oo la leeyahay walba soo eega xaaladda beledweyne iyo waxay ku sugantaa soo indheendheeya waxaan noo muuqda gurmad technicality kale oo jooga xafiiska prime ministerka iyo ka socda oo xalka waara eragaa naloo isticmaalay waxaan leenahay dawladdu way dadaalaysaa laakiin naguma filna ma nagu filna dawladda Soomaaliya dadaalkeedu naguma filna way dadaashay waa qirayna intaanba ma naqabi jirin cidna soo eegtay ma naqabi jirin dibiga dooloodaan hayn ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre siyaasaddu waa cadad la isku daray caawa ma raba inaan u sharaxda dhigto waxaan ka codsanayaa siyaasad iyo dhaqaale iyo amni iyo wax walba waxa laga maamulaa waa xafiiska executive-ka xafiiska madaxda ka yahay waxaan ku shaqaynaynaa waa afar bis waa baalo dawladdu leedahay kuma jiro waa baalo dad shibil u leeyahay saacaday rabaan inay naga kaxaystaan dawladda Soomaaliya baalooyin waa haysaa war adabkii Soomaaliya u yimid hadday dhaqaale tahay hadday ciidan tahay hadday siyaasad tahay hadday wax kale tahay muqdisho soo dhaafilaayay macnaheedu maaha muqdisho inaan dacweynayno war inta dad Soomaaliyeed jooga dawladdu waa noo soo gurmatay laakiin naguma filna ma dhaliilayna dawladdeena waa noo soo gurmatay waaba halka dawladaha aan dibiga doolood naga dhigin laakiin waxaysan noo sheegin ceelka aan cabno war meel baan ka jabanahay oo xilligaasaan joognaa dhibtaana lala qaybsado waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanaynaa dhibteena lala qaybsado waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanaynaa gacan weyn inay noogu adeegaan ilaahay baa gacan weyne dawladda gacan weyn aan rabnaa gacan weyn